baa waxa dhacay wuxuu doonay inuu guursado dadna waxa jira hadii jir qofka waxa jira oo la yiraahdo hiwaaya dooq qof walaha laga yaabo qof inuu dooqiisu si yahay dooqaasi nin la fiican yahay ninka kalena cagsigeeda uu leeyahay masalan la qurux badnayn ninka waxa isagoo aad u jeclaa bal gabar jaamacada ka soo baxday inuu guursado jaamacada qarbiyo oo jaamacadaha marka Yurub iyo Mareykan iyo ka timiyo dhulka uga sheekayso dhulka bal waxay ku soo aragtay ya taas aad u jeedoonay aduu wuxuu muddo hawshii wadaba intii guursaday intii uu helay intii markuu guursaday ayuu la aqal galay ayaa waxa dhacday arrin saluugay ayuu ninkii arkay dadna uu yaabay arrintu saluugay waa maxay waxa jira guriga shaqada guriga ee daaqilka dumarka leh shaqada khaarijka inteeda badan ee ragaale shaqada guriga inta badan dumarka rag way la wadaagayaan dumarka way la shaqeynayaan hawshii gurigiisa laftiisu kama gacan la'aan ayo aduu shaqadii ay lahayd gabadho aan la yaabay moogta shaqooyinkii waxa weeye islaan hooye ayaa guriga ka shaqeysa isaga hooyada sudohdeeda iyaduna marka hataa wuxuu leeyahay marka quraacda loo soo dhigo weelkan loogu soo dhigay ma qaadee weyn islaamtu timaado weelka ka gurta islaamtu u soo dohdi iyada u soo dohdi dadna waxa dhacay ninkuu yaabay dee balina ka soo reyso mala waa maalma hore mala waayo mala muddo dhaqankiina aad uga fog uu yaabay nin mustashaar la taliya arrimaha qoyska ka tala bixiyo u tagayo warniyo arintaas ay qabsatay buuri saasa ku qabsatay ooyaa guriga marka hawshan yaa qabta hooyaday wadaado talaan ku siinaya barito adigii hooyada iskoo baahan hooyo wax ku fiiqayso isku qabsada ana fiiqaya dhaha marka waxay baliyadu tiraahdo isoo sheeg dawani tala la soo siiyay markuu waagi bariyay taanu gaariga istaaran ay islaanti iskoobe meelahan daarada iyo meelaha ku yara fiiqayso hooyadu ku siida iskooba saantana may bay sidayn maay muran baa meeshii ka bilaabmay hooyo meeshan aad ku jajabeen kaabadana waa dhaadheeriin waa sane ka joog way ana fiiqayo shaqadaada habsaamin qabo qaylada marka baxday gabadhi soo baxday marka wali waxay tiri haajira waxaan dhacay waa maxay buuqani muxuu ahaa islaanta waa shaqo waxay tiri hooyo habsaamayaayo waxaan leeyahay shaqadaadi ma ahay aan guriga ana fiiqaaye oo shaqadaadi qabo isna wuxuu meeyana waxaan leeyahay hooyo waalid baad ii tawteen waa waalidin kaarnime ana fiiqaaye faraha ka qaad gabadhinta waxoogaa yara aamustay ayaa waxay dhageysta buuq iyo qaylo looma baahna si degan baa hawlaha loo dhamaynaya aduguna maanta haduu leedahay haddaad islaantii tahay adna warbarraad u leedahay shaqadii waa u qaybisay miskiiba baanin bu fiiqaya dabadana adigu ninkii warkiibu ku celiyey aduu ninkii hawshii talooyin marka deemka tusaale ahaan si rag badan oo shaqadooda aan aqoon ay u jiraan aduu inantaasi shaqadeedii may garanin waxay shaqadeena hawshaydii adna malihid islaantii soo dohdo adna malihid ay ahayd marka runtii waxaan leeyahay labada lamaane ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu iswaafajiyay ee guri Ilaahay u qadaray inay reer nolosha wadaagaan waa in qof waliba shaqadiisa mas'uuliyadiisa ka soo baxa u gartaa